لكن بروفايل كيسي بقى إن شاء الله ومارت دول مرينا ربنا نكتب دكسي سنة الصومالية موسى قال بقول سعاشر إيو 1982 to 1986 محمد روحوا أرضي وحكبرتا جامعتي ومدى الصوماليين الله فوله كان قاعدين يتريننج مع المدى halkaasoo ku sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii ilaa sagaashan iyo kowdii uu ka ahaa assistant lecturer iyadoo looga dad badan oo Soomaaliyeed taariikhdiisa yaqaan ay ogyihiin inuu ahaa ardaygii markii jaamacadiisa dhamaystay isla jaamacadiisa dugsiyeed ku xigay ka noqday assistant lecturer taasoo cidina ay runtii dad badan ay sameyn karin ayna keentay dhibcaha qofka markaas uu kaga baxay jaamacadiisa ku sagaal boqol sagaashan iyo kowdii إلى سعاشر يصدقني محمد الحكتي أنا جاي درجة فيلوشيب كجامعة الروم سعاشر إسلام مركز محمد روحها أو نقضي سعاشر يشنت يصدقني إلى سعاشر تقول عايزي وزير كي قشيته دولتي أي هم جامير يسي شباب دولتي وحرية ولادية لقد يسي هشيس كي يقول جارين شبابي جو بيا قصة أول لفاي qaybta ka ahay coalition oo dhisay dawladda ka soo baxday ee oo leefay hogaaminaysa madaxweynaha uu ka ahaa Allah u naxariistay Dr. Abdullahi Maxamed Sacdi ayuu wuxuu ka ahaa wasiirkii qorsheynta ee dawladda isagoo markaas ahaa ku-xigeenka wasiirka qorsheynta ee dawladda federaalka ahayd ee guud isla markaa Maxamuud wuxuu aasaasay oo uu co-founder ka ahaa oo raggii aasaasay uu qayb ka ahaa hay'adii loo oran jiray Ogaden Welfare Society oo wax badan ka qabatay أوس تطبيق قانون وهذا هايد شعبي أو خيري أو اخترت مدة صغيرة وغادرية وكفر وكذا. 1997 إلى 2000 كي وحوها Senior Field Assistant for UNDP وقابل سنة UNDP أهمها الخيرات في هودن كوغادرية يصير كلام طاولانية. 2000 كي إلى 2002 وحوها National Consultant for Oxfam Oxfam ayuu wuxuu la taliyay guud oo qaran uga ahaa guud ahaan Ethiopia gaar ahaan waddanka gumaysiga ku jira Ogaadeniya 2003 ilaa 2008 Dr. Maxamuud wuxuu ka diyaarinayay shahaadada PhD-ga oo ahayd markaas qaybta diyaarinaya organizational development oo ahayd shaqooyinkii ka soo qabanaya waddanka Ogaadeniya jaamacadda Open University of Manitoba hadda xaaliyan Maxamuud waas wuxuu ka diyaariyaa PhD labaad oo ah sharciyada ama immigration law waxa la yiraahdo University of British Columbia haddii aan si fiican u yiri haddii aan si rafo u kaxeeyba anoo waqtiga ugu yahay waqti aan ku filayn wuxuu ahaa kaas Maxamuud Waas waxaan doonayaa insha Allah inaad si xushmada ila soo dhaweysaan Dr. Maxamuud Waas Maxamed أروح أسوق على منطقة صعب وقفت أنت اللي قصوا على الميسكا ليش وقاعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan faraxsanahay inaan waxay kala wadaago sanad guuradii 31aad ee Jamciyadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeniya oo mas'uuliyiin waaweyn ay fadhiyaan meesha wixii mahad celinahaa iyo wixii hordhac ahaa dhalinyadii ugu horeysay baa tiri waqti badanna ma rabo inaan jadilo waxaan idinla wadaagayaa genocide waa tafiirgo genocide Ogaadeniya ay ku hayso Ethiopia sida ay adduunyada u arag sida inuu aragna ma waxa la yaabaa waa propaganda iyo qoriyada ku raadsanayaan inaan sidaan sida adduunku u arko dhowr slide waa 6 daqiiqo malaynaya filma kala duwan oo adduunka laga diyaariyo oo isku soo dubaday yaan raayna in la wada أول مرة genocide كم هي مهيئ حاصل ضدهم بيلينيان وكل كي بيقرأ حتى سوى مثلا جذيه يحاول يبويلين أو كل كي ترك عليه كنا بيان بينا كل كي تعلم دول وفردول بقى سؤال سويد اللي سويدين هي ما شاء الله طبعا أولادنا يقعنا خيرات كسبوا جرا ضد الحسوسية وبعنا ويجرا ضد أنا قلنا ويجرا وحين هو كعبا كسمينيا
dadka tiradoodu waa 8 milyan Ethiopian waa 8 milyan inta guduudan waa sub-Sahara Africa 500 milyan wey marka haddaan rabtana gobolka wax ka ogaato dowlad kale ama wadamo kale u barbardhig oo u eg kheyraadkooda iyo tiradooda haddaan intaa ka gudubno wadankani waa qani waxa laynoo haystana waa qaniyadaas rangeland waxaa la yidhahdaa dhul daaqeed kuleeyahay aada u fara badan xoolo livestock kuleeyahay minerals macdan baa ku jira iyo gas iyo natural oil baa ku jira marka haddii la eego rangeland dhul beereed dhul daaqeedka waa rangeland waa dhul daaqeedka wadanka Ogaden iyo Ethiopia boqolkiiba 75 dhul daaqeedka Ethiopia sheeganayso gobolka Ogaden baa kaasna wuxuu la mid yahay boqolkiiba 15 dhulka sub-Sahara Africa daaqa ku jira gobolka Ogaden ku jira boqolkiiba 70 xoolaha Ethiopia jooga Ethiopia ay sheeganayso inay ka mid nahay waa wadankeena Ogaden iyo xoolaha ku jira xoolahaas tiradoodu boqolkiiba 12 bay wadamadii dhanaa 500 milyan ah u geeyay boqolkiiba 65 mineralka Ethiopia inaga ay ku jiraan marka Ethiopia waa sayid isugu dareysay kumana darsan doona boqolkiiba 5 sub-Sahara Africa natural gas-ka ka jira ay Ethiopia shirkadaha 75 u keensatay ee lacag kaga qaadatay boqolkiiba gobolka Ogaden wadanka Ogaden ku jira وتطلعت اللي شاب سب-Sahara Africa واليلا يجاش كل كسرة غني جوا دراسات أو حاسة ما يصير natural resource this population sharing estimate surveys ADC هذه على ودون كمان خيرات سنة جوا مرسول ترى كوب تاسع ما يصير 2008 أفكر روان وين كريه ده كسالة قال لي مركب أو كسالة قال لي سلا غني جوا الدنيا فربنا بعض قومتها وتكتي هي أنا فربنا مستوى فرح تجي دولة يسافرات تجي وضد كينيا الصومالي هندي وعربي ورصدي وحقيقة دي صوت عاطي عكس على الفيديو يا من تعاونين هاي مش لا تعاون Somalia has been a source of conflict since the area was ceded to Ethiopia by the British in 1954. Somalia has twice unsuccessfully fought wars with Ethiopia to get it back. The Ethiopian government has banned aid agencies and journalists from accessing the region. And as we speak, there are reports of famine and genocide in the area. This week, Africa Today focuses on the Ogaden, asking, is the $7 billion of Western aid to Ethiopia helping to fuel genocide? The Prime Minister of Ethiopia, Meles Zenawi, has been accused of genocide in Ethiopia's Somali region, Ogaden. The region has been experiencing severe droughts with millions facing famine. Mr. Zenawi's government has barred most aid agencies from operating there. The International Red Cross also expressed its frustration after it was denied a license to do relief work in the region. Most of Ogaden's people are of the Somali ethnic group, and critics believe this is the reason for the region's isolation by the Ethiopian government. They also believe Western aid of about $7 billion a year has strengthened Mr. Zenawi's cause, while these allies have turned a blind eye on the alleged genocide.
This week, Africa Today looks at the role the West is playing in funding the regime and whether the funds are fueling the genocide in Ogaden. The international civil liberties pressure group Human Rights Watch has accused Ethiopian troops of systematically ill-treating civilians in the Ogaden region, where ethnic Somalis have been fighting for more than a decade for more autonomy. Human Rights Watch accused the United States and the European Union of ignoring widespread abuses, including rape, torture and beatings. BBC Network Africa. Now some grim allegations of torture and rape from Ethiopia. The organization Human Rights Watch has a new report about atrocities against the people of the Ogaden region in the east. A rebel movement has been active there for years now, but the army is being accused of acting against civilians. Georgette Gagnon speaks for Human Rights Watch, and she gave me details from our studios in Nairobi. We found that over the last year, the Ethiopian army has been killing, raping, torturing and systematically displacing civilians in the Ogaden region of Ethiopia. And they've done this as part of a counterinsurgency campaign of scorched earth against ONLF rebels there. You were not on the ground in the area you talk about, so how were you able to reach the conclusion that you've come to? We interviewed more than 100 victims and witnesses to these atrocities in neighboring parts of Somalia and also in Kenya. We interviewed as well traders, business people, regional officials and others to come to our conclusions. I should say that we also requested access to the area on many occasions to the Ethiopian government, which gave us no response. We're 100% confident in our research findings. How certain are you, though, that it's the Ethiopian government that is orchestrating this rather than just the work of some renegade soldiers? All the victims and eyewitnesses that we interviewed clearly identified the Ethiopian army and soldiers as those who had raped them, for example, who had summarily killed people by strangling, and who forcibly displaced them and burned their villages. The Ethiopian government, though, says they're not the ones who are perpetrating any human rights abuses in this area, it's the rebels. Well, that statement is false. Is the center of an enormous aid to arms diversion scandal. I mean, something like $6 billion a year, according to the latest reports I've seen, is funneled to the Meles Zenawi regime to keep him in power there and enforce the interests of the IMF and the World Bank in that part of the world. So I think it's pretty much they pay off Meles Zenawi and he does what they want him to, like invade Somalia, invade Eritrea where I lived 10 years ago. So I mean, I think it's, right now Meles Zenawi is carrying out a genocide in the Ogaden, and it's escalating into a full-blown genocide where he's rounding up tens of thousands of ethnic Somalis in the Ethiopian Ogaden and putting them into basically starvation camps. The expression is, if you can't catch the fish, meaning the Ogaden rebels, you drain the lake, and that's what he's doing. He's accelerating the Ogaden genocide, and the purpose of all that is just basically to keep Meles Zenawi in power so he can protect imperial American interests of Pax Americana in the Horn of Africa, which is one of the most strategic areas in the world. All the trade between Asia and Europe passes through the Horn of Africa every day. So the Americans have got Meles Zenawi there, protecting the bank's interests. For a number of years, Ethiopia has been consistently ranked among failed states. According to organizations such as Fund for Peace, Ethiopia has been included in the critical or warning categories of the Fund's Fragile States Index for the past several years. This is corroborated by the results of the long-term analysis of the U.S. National Intelligence Council, which placed Ethiopia among the 15 states that will become virtual failed states. Neighboring Somalia is the best example of a failed state in which everything has disintegrated because of years of inter-clan animosity. waxaan u malaynayaa inta badan haddaynu dalal dibaded joogno citizenkii imtixaankiisiina aan ku wada baasnay waynu afgaranaynaa in fasalaad badan laga bixiyo uma baahna 3 slide baynu daawanay in yar baan faalleynayaa
يوجد بيجي كسو قال تطلع الصومالي أو حيامسي إثيوبيا قوة أفريقيا ويانا بس كمان علم كمان ولا نجاح هذا سيما الطيارة مثلا وقدام بيسي كونسل كإنتليجنس كأمريكان بوك عشان يتوقع وطن إعد دون سيد الصومالي يقول عليه إثيوبيا كم تخيل 19 مليون أو مساكين أي 6 مليون يقطع 6 مليون لا هي طبعا الجلية على كايس ويودي بساسي بالمريض ندي كور رئيس Human Rights Watch ما هو سياسي Human Rights Watch بقول جراوي سألنا أو أنا لفتت كدلين العيد كبرنا في سنة وفورس statement يا مقلسة يعني Human Rights أول Human Rights كعبة أو جراوي أبناء استباء أو جراوي Human Rights Watch أو جراوي ICRC أو جراوي MSF Bench أو جراوي waxay meelaha wadwadaan in macnaha lahayn waana la faadad kalaysa Ethiopia dad kalaysa waana genocide oo ku hubo marka inaan fasfasilo way fiicnaan laakiin Allah yarateen waa baadsantiin qodobada badan baa iga dambeeya inta ay la midaayeen aad u fara badan ilaa iyo saacada lagu qiyaasa hadalka 300 oo audio visual 300 oo saacadood baan ka diyaariyay daraasadan human rights waa baadsantiin